السلام عليكم وأنا هلالكن عبد المجيد habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan kaydin tahayba muuqaalkan maanta waxaanu kaga hadli doonaa shakhsi afka saaray wadada holaca iyo wax la'aanta laakiin se maanta ka mid noqday nimanka ugu hantida badan adduunka waana aasaasaha shirkadda WhatsApp. inta aynaan mawduuca u guda gelin waxaanu kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe ta saarto si ay nagu noqoto dhiirigelin ku soo dhawow. waxa uu dhashay Jankum sanadkii 1976 waxa uu dhashay tuulo yar oo ku taala dalka lagu magacaabo Ukraine. Jankum waxa uu ahaa wiilka kaliya ee uu joogay waalidkii amaba ay dhaleen. xaalka Jankum iyo qoyskiisa waxa uu ahaa mid aad u adag, waxay ahaayeen qoys uu saameeyay faqriga iyo wax la'aantu. xitaa waxa la sheegay in aanay gurigooda lahaan jirin leer amaba koronto, balse duruufahaasi kama ay dhigin Jankum mid isku dhiiba nolosha oo ka quusta. markii uu gaaray da'da 16 jirka Jankum waxay hooyadii ula safartay oo ay la socdaashay dalka Mareykanka iyagoo ka fardhanaya amaba ka cararaya xaaladda dalka Ukraine oo ahayd mid la daalaa-dhacaysa dhaqaale xumo iyo dagaalo ka dhex socday siyaasadda dalkaas. halkaas oo aabaha dhalay uu isagu iskaga hadhay amaba uu joogay dalka Ukraine. waxay degan Jankum iyo hooyadii gobolka California ee dalka Mareykanka iyagoo dawladdu u deeqday guri yar oo ka koobnaa 2 qol si ay u degaan. sababta loogu deeqayna gurigaas uu ahaa Jankum hooyadiisa oo la soo darsay amaba ku dhacay xanuunka loo yaqaan kansarka. markii uu gaaray Jankum da'da 18 jirka wuxuu bilaabay inuu xiiseeyo ama wadaneeyo cilmiga tiknoolajiyadda gaar ahaan kombiyuutarka. kadib waxa uu bilaabay inuu soo kareysay buugaagta ka hadlaysa kombiyuutarka maadaama aanu haysan lacag ku filan oo uu ku soo iibsaday buugta. arrinkaas oo u saamaxay inuu ku biiro jaamacadda San Jose State. intii uu ku guda jiray jaamacadda waxa uu Jankum ahaa mid gelinka horena jaamacadda dhigta habeenkiina waardiye ka mid ka mid ah shirkadihii ugu waaweynaa waagaas dalka Mareykanka. sanad kadib Jankum waxa uu boos shaqo ka helay amaba iga soo baxday shirkadda lagu magacaabo Yahoo. booska uu ka helay Jankum shirkadda uu ahaa inuu soo suuq geeyo shirkadda. waxaa soo wajahay Jankum kalinimo iyo murugo kadib markii ay dhinteen waalidkiisii, wuxuuna ahaa mid kalinimo dareemaya ilaa ay isbarteen in lagu magacaabo Brian Acton oo ahaa mid ka saaray Jankum murugadii. intaas kadib waxa ay go'aansadeen in ay ka tagaan shaqadii labadooduba kadib markii ay waxba ka dheefi waayeen kaliya mushahar cayiman oo ku dhamaanaya 3 bisha kaas oo aan wax kale ka soo harayn. waxa Jankum iyo saaxiibkiis ay shirkadda caanka ah ee Facebook ka dalbadeen shaqo iyagoo rajeynaya in ay qaadan doonto oo ay shaqo siin doonto, balse nasiib darro way diideen labadoodiba. waqtigaas muu garanayn mulkiilaha shirkadda Facebook in uu soo raadin doono labada nin siin doonana lacag dhan 19 bilyan oo dollar. sanadkii 2009 waxay labada nin bilaabeen samaynta application cusub oo lagu wada sheekaysto kana fiican adeegga la isticmaali jiray waagaas ee la oran jiray SMS. waxay ahaayeen labada nin kuwa ku heelan samaynta mashruuca WhatsApp ilaa ay ku qaadan jirtay saacadaha dambe ee habeenkii. ugu dambeyntii Jankum iyo saaxiibkii waxay soo saareen application-ka WhatsApp. mashruucan oo noqday midkii ay kaga gudbeen wadadii holaca tufaysay ee wax la'aanta. waxa application-kani ku baahay adduunka muddo 5 sano ah kadib samayntiisii. waxay gaadhay dadka isticmaalaya WhatsApp 5 sano ka bacdi 450 milyan oo qof. qiimaha gadashadiisana waxay noqotay ama lagu kala iibsanayo 6 bilyan iyo 8 milyan oo dollar. sanadkii 2014 ayaa waxay shirkadda Facebook ku iibsatay application-ka WhatsApp lacag dhan 19 bilyan oo dollar. Jankum iyo saaxiibkiisna waxay ka dhigtay madaxda shirkadda WhatsApp. muuqaalkeena maanta intaas uu ku eegyahay. tan ku kulmayna muuqaalka xiga waxaan isku dhaafayaa sidaas iyo salaamaad.